meel mustaqara oo la deganaanayo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay daar ibtilaa'in wa imtixaan waxaa rabbi qur-aanka ku tilmaamaya الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلهي وحو tilmaamaya adduunka in imtixaan loo keenay dadka la eego أيكم أحسن عملا kiina dhaqan fiican waa isku kiin imtixaamay baa ilaahay leeyahay in la arko تصبرون miyaa sabraysaan ilaahay hadduu doono waa idin inta muuminiinta waa u hiilin lahaa mar kastaba oo dunida gaalba ma joogeen laakiin rabbi wuxuu doonay inuu isku kiin imtixaamaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala sharka iyo khayrkaba waa la isku imtixaamaa wanabluukum bishari waalkhayri fitna laqad khalaqna alinsaana fii kabad ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين dadka badh baa waxay u fahmeen haddii ibtilaa uu dhaco inuu cuquubayay bas mashaakil haddaad aragto waa dad la itixaamay waxaynu u naqaanaa dad la ciqaabay wixii dhib dhaca ma ciqaab unbuu u yimaadaa لأن فهم كاسي مقومنا نبي عليه الصلاة والسلام وحكى والرمي نبي أيوب وحنو صدي وطبني يسيدات سنبكي ودك أنتي ودويدي أنتي كفقيت بكتاغين لبنن وأصحابتي سيكمدة كوي ود الدواء إيا هوين هديسي وحلم يدكو صهرين oo maalintii dambe labadii nin ay iyagii isweydiiyeen oo mid yidhi taclamu wallahi laqad adnaba ayuubu danban maa adnabahu axadun min alcaalamiin waxaan u malaynayaa ayuub buu leeyahay inuu dembaabay dembi aan dunida qof joogaaba dembaabin 18 sanuu jiifay kii kale yidhi wamaa daak maxaad waa maxay waxa ugu malaysay qaala mundu 18 sana lam yarxamhu allah buu yidhi 18 sannadood ilaahay uma naxariisan oo lagama qaadeen xanuunkii markii labadaa nin ay warkaa isu sheegeen kii loo sheegay baa soo socday oo nebi ayuubu sheego wuxuu yidhi saasaa la sheegaya ayuub baa wuxuu ugu jawaabay laa adri maa taquul غayra ana allaha yaclamu annii kuntu amuru cala الrajulayni yatanaazacayni fayadkuraan allah فارجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق وحا شيخ سانو قرن ما يبودا دان سومر الله بايس هايستا وإلهي سبحانه وتعالى أيان حسي جرو وحان سمين جري إنان وحبحيو أنا قول نعبي سنة يا إلهي سبحانه وتعالى سحقه mooye si kale inaan loo soo hadal qaadin calaa kulli xaal ilaahay subxaanahu wa tacaala markii dambe waa u waxyooday oo wuxuu ku yidhi urkud birijlika hada muqtasalun baaridun wa sharaab qisadatan waa qiso waxoogaa dheer laakiin waxaan uga dan leeyahay uun waxay tilmaamaysaa inaanay ciqaab wada ahayn waxaa loo yaqaanaa ibtilaa'aadka dadka ku dhaca laakiin ka mas'alata shari markaynu si guud u eegno allah huwa alcaliimu alxakiim ilaahay wuxuu isku sifeynaya inuu cilmi badana yahay wax kasta ma'aalkooda iyo say u socdaan iyo si walba inuu ogyahay inuu xikmad badana iyo shay walba halka ku habboon uu dhigo bini aadamku laakiin dunida ma wada oga mustaqbalkana garan maayo si guudna waxuma arki kara waa indha ku garaadlo intuu markaa arkayo unbaa u muuqata xataa malaa'igtii markay garan waayeen nebi aadam xikmaddii loo keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu imtixaamay waxay ku jawaabeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim ilaah wadaa cilmi badan oo xikmad badan bay leeyihin intii aadna bartay mooyaane in kale garan mayno
erayga xakiimi qur-aanka in badan badan buu ku soo arooray. waxaan uga dan leeyo ibtilaagu wuxuu iman karaa lirafci darajaat wa icdaami lujuur. qofka oo darajadiisa ilaahay rabo inuu kor u qaado ajarkana loo buuro, sida inta badan imtixaanaadka ambiyada qabsada iyo dadka khiyaarta ah. wuxuu kaloo u yimaadaa litakfiiri sayi'aat, qofka oo dembiga ilaahay rabo inuu kaga maydho. wuxuu kaloo u yimaadaa isagoo cuquuba mucajala ah, ciqaab la soo horumariyey, ahlu macaasiga la ciqaabayo, iyo markay mubaadara u samayn waayeen inay toobad keenaan. wuxuu kaloo u yimaadaa lilibtilaa'i waatamxiis, dadka in lagu kala sooco oo khafaaya nufuus kor loo soo saaro, oo dadka munaafiqiin iyo mu'miniin iyo dadka wanaagsan iyo dadka xun ilaahay ku kala sooco. wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan litarbiyati alrijaali min xuduudi anfusihim, dadka oo laga rabaynayo naftooda waxyaabaha ay jeceshahay. oo bini aadamka sida ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala waxyaabo badan oo in laga koriyo uu u baahan baa jira. waxaa kaloo uu soo arooraa litadkiiri almuncim, ilaaha subxaanahu wa tacaala nicmada badan leh inuu dareesiyo. dadku markay nimcadu joogto iska noqoto waa ilaabaan ilaahayni iyo nimcadiisa, waxay xoog u xasuustaan markaa dhibtu timaado. wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan liihbaati alxujati cala annaas, dadka cilmi daahira si uu u muuqdo oo aakhira aanay u helin marmarsiinyo oo xujada loogu ogo intay dunida joogaan. wuxuu kaloo u soo arooraa litadkiiri almudnibiin, kuwa habowsan inay bal rabbi xasuustaan oo marka mashaakilku qabsado ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dib u soo xasuustaan, iyo walitanbiihi alghaafiliin, ghafladu dadka ku dhacday inay toobad keenaan. waayo falaslu fi linsaan bay yidhaahdaan attaqsiir baa asala. intaasoo mas'alo oo aan sheegay iyo in kaleo aan ka dabageyn doono haddii wakhtigu inugu simo, waxaan tilmaami doonaa adilada kitaabka alle ku soo aroortay masaa'ilka ka warramaysa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayey dadka ilaahay rabo darajadooda inuu kor u qaado, magac iyo maamuus u yeelo, xasanaadkooda u labanlaabo sida ambiyada iyo saalixiinta iyo inta ka agdhow, wuxuu nabiga la weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa, dadka yaa u dhib badan? qaala alambiyaau uma alamhalu falamhal yubtala alrajulu calaa xasabi diini. dadka waxa uu mashaakil badan buu nebigu ku tilmaamay nebiyada, dabeetana uma alamhalu falamhal, siday nebiyada ugu soo eegyihiin, ugu soo kala dhadhow yihiin ama ugu kala fiican yihiin. qofka waxaa la itixaamaa kolba diintiisu intay leeg tahay buu nebigu yihi. fain kaana fii diinihi, hadday diintiisu mid adag tahayna balaaga waa lagu adkeeyaa. hadday diintiisa dacfi iyo jileec ku jirana waa loo khafayfiyaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. famaa yazaalu kadalika xataa yamshi cala alardi maa lahu min demb. sida imtixaankaasi ugu socda ilaahay wixii dembi qofkan korkiisa saaraay o dhan lagaga tahiraa. idan waxaynu leenahay culammadu waxay yidhaahdaan ambiyada waxaa loo itixaamay in ajarka loo buuro oo fadligooda uu kaamil noqdo, oo bini aadamka loo tusiyo sabirkooda iyo dadka inay qudwo ugu noqdaan. bini aadamka qudwo kama maarmo. nebigaa ilaahay ambiyadii hore leeyay fabihudaahu muqtadi, dadka kalena inay nebi maxamed ku daydaan calayhi salaatu wasalaam. marka naqsi iyo cadaab maahee waa nebiga oo ummadda qudwo looga dhigayo. si awgeed baa nebi maxamed wuxuu soo maray noloshu waxay martoo dhan: agoonnimo, rajaynimo, wax la'aan, iyadoo la eryayo, la maagayo, iyadoo dil lagu xukumay, iyadoo dagaal lagu qaaday, iyadoo uu guulaystay, iyadoo uu xoolaystay, iyadoo la kala doorransiiyey boqornimo iyo addoonnimo kuu qaadanayo risaaladu ula socoto. noloshu waxay martoo dhan. isagoo aabba noqday oo 9 reer oday u noqday, isagoo qaadi noqday, isagoo madaxweyne noqday, isagoo rasuul, waxa insaanu shaqo qaban karo oo dhan ayuu qudwa ku yihi.
waxaasoo bini aadam imtixaankay maraan nagu soo wada maray taa macnaheedu waxa weeyaan in la rabo in kor loo qaado dikrigiisa iyo magaciisa ilaahay koraysiiyo sabirkiisa iyo adeegiisa iyo dadnimadiisa dadka la tusiyo si uu qudwa ugu noqdo idan waxay leenahay alamthalu falamthal cankaas uu noqdaa wuxuu kaloo soo arooray culimadu yidhaha litakfiiri sayi'aat man yacmal suu'an yujza bih ama maa yusiibu lmuslima min hammin walaa xusn nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam muslimka ma haleela ama wixii haleela ee warwara ee muruga ah ee dhib oo dhan oo soo gaadha xataa qodaximo muddo ilaa dambaa lagaga dhaafaa buu nebigu tilmaamaya man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu qofkii ilaahay khayr la doono waa la itixaamaa in sha allah wakhtigoos ka kooban axaadiistaan sheegi doonaa